بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ علي أبو بكر أحمد أستاذ علي كيميكو كسو دوالة جنال كيغا أستاذ كيميكو أمرو بقراصو عطان 10 إلي حيسي قليا ما أنت وحايدين وضاء جغرافي فصل كفنفور يونت كستيداد لغو مقعابو بابليشن وحايدين وضاء جابتر كستيداد جغرافي فصل كفنفور يونت كالليراو يونت 8 أو بابليشن بيت كسغاشن إلاو wuxuu noqon doonaa laba qaybood insha Allah ta'ala qaybta koowaad waxaan geeli doonaa haduu rabbul caalamiin ka noo idmo haduu rabbul caalamiin ka qadaro kala baraya u qaybinina qaybayaan akhrin doonaa insha Allah ta'ala soo socod marka ila socod buuga soo baxso population af Soomaali waxa lagu yiraahdaa bulsho ama shacab jabtarka markuu dhamaado ardayga soo waa inuu qeexi karo population distribution in the East Africa bulshada ku baasan geeska lidaado geeska Africa oo jabtarka kuwaad kaga soo hadalay illa qeexi karo ama la cadeyn karo waxyaabaha saameynayo population growth-ka waxyaabaha keenay inuu bulshada kororto wax hoos u dhigayo in la ogaado population growth structure and demographic trends isbeddelka ku dhacay xagga demografiga iyo isbedel maxaa la yiraahdaa qofka inuu qeexi karo caqabadaha ka imaan kara population structure-ka ama population growth structure-ka qaabka u sameeysan yahay عواقبتها كده على ليس إن شاء الله تعالى عشر كان بلعبنا جبتر 8 أم يونت 8 إن جبتر تسديدات يعني كبلعب دولا وبpopulation population محارة ده مركا population in generally use أنت بدو حاله استعمالها refers to حالة قلت ذات all inhabitants لما ذاتك السبويين كأمدريش الدجن of a given place بر حديدا أما ميل حديدا بها تمشى دي balance دي أهان لاين أورال مالس أما حيوانه أو مثل human population برشة ذاتك أو human population محل refer to the total number وترى the good of people ذاتك phone لقيه لايو in لقيه لايو أو مثل inhabiting the given area بل عن مال حديدا أو هذا human population is referred to حال قلت كذا ملوقي حاو على استعمال ملوقي حاو to the all inhabitants لما ذاتك the of a given place مال حديدا بها هاتو they be balance be they أدي باش أهان هذا در أما حيوانه human population محل مركي human population وحال قال أنا ليه هاي مال كستا inhabit in a given area the area ماشى الصحة relatively وقوة حريرة أنا كان بي وحنقول كرتا a small barrier as a counter سيدا ودن كوكلا or مسي as a large midway as a counter سيدا قارة أوكلا the world population area population forms حسمين هي the largest unit area ماشى آتو بدن in this unit in this respect ما كلا في area حاجة سيدا أوكلا هالريان the world area population comes from area population وحالها كانه Latin word area Latina أو populous لقوا populous area Latin معناه سويها people dot populous وحال معناه people dot okay the study of population percent population وهذا demography حلوقة عمل the study of population to understand سلوك فهم مركز demography is necessary وحال مرمانا مركز البرنامج demography to identify العدايات the source of population data ماشي أما حقت لقيه ليو وحقت برشدة ماشي لقيه ليو وإلا عديان ليه أوكي there are two source واحد يتلبى source أما لبى إل أو population data لقيه له منه حالو له primary data is secondary source أما primary source is secondary source primary source وحالها حقت المكان اللي بنابيه معلومات إن تامشي كواد وقفك إنه أصيغ سميه secondary بحاول خف جعان كلا مركز جرته أما another source كانوا استعماله وsecondary primary source of data population حالة هذا مركز this include وحاكم ده registration of person تذكر القراءة ولا ديوان جريو renaissance تركاب اللي سميه simple survey كسبين فضلات الاستعماله okay secondary source of population data and these are كون وحواي are the most widely used resource أما source أما إلها مالا أقول بدن الاستعمال of population data صوت وحواي وقت كاتم على هذا primary data اللي هلا primary source جوا سكير هذا حقت حاجة شدا تسألها ده كسيو وحالي واحد داعي شيء داعي for example شيء قبل كده داعي أفكر الله يمر سنة سلام كان إله مقدر شو أنا عمل كده لاعي اللي الأفرق فكل ما تلبيته موقف نويل إلدرنتا وحالة قصة حكتي إسبتال كبرادير سألها لكم كده حاجة شيء اللي راه وسكندري نقوله يا قف كشيء قبل قصة سكندري كنت هاي they are include حاكم إذا مركز تالي فايبرز أما ورقناها الاستعمال شيتس كتالي الاستعمال أو statistics الوقاته population reports كلا دابعوا أما population reports كلا دابعين والله هاي
statistical abstracts waxyaabaha la soo xigta ee xagga tirkoob ahaan ama statistical la soo xigta registration of persons dadka in la qoro la diiwaan geliyo the registration of birth in la qoro dadka dhasha dheer dadka dhinta and marriage dadka guursanayo is a basic source of data of population waa meesha asaaska ee laga helayo xogta bulshada salaam kala tirada dhalatay iyo tirada dhimatay tirada guursatay hadii la helayo waxaa leenahay marka oo la qoro macnaha ula jeedna la qoro waa sida waagi hore ahaan jirtay waxaa dhacaysa marka bulshadii in aad tirkoobkeedii loo hayo xogtii soo kortay waxna laga warqabo marka inta naga dhimatay sanadkan salaam kala waxaa naga dhamaan sanadka 2019 oo kale 2019 ka naga dhamaan marka waxaa qiyaas lahayn inta dhalatay inta dhimatay inta guursatay waxaas oo dhan waa qiyaas lahayn marka laakiin hadda insha Allah ta'ala wala gaari doona nidan khayr sheegana registration of birth dadka in la dhashay in la qoro isisad waxaa loo isticmaalaa to calculate lagu xisaabiyo the birth rate heerka dhalmada of the country ee wadanka hadda wadankan oo kale heerka dhalmadiisa iyo heerka dhimashadiisa waxba loolama socdaba sidoo kale isisad waxaa la isticmaalaa to determine in lagu xadido the number of persons tirada dadka adeed lagu daray to the community of a period marka loo fiiriyo xagga waqtiga sad figures marka xigashadan ama figureskan لكن النورال معناها استانسر معناها دي سد فيجر استانسر صفدا وحاجه dadka dhashay la qoraa لكن in rural areas meelaha baadiyaha ma lahan because sababtu waxa waa inuu meris path dhalmo badan aan registered lama qoro marka registered hadda waxa anaga salaano kale dadka dhashay hadda oo baadiyo ku dhashay dadka magaalo ku dhashay ama dadka isbitaal ku dhashay aad u yiri marka dadka isbitaal ku dhashay waa la qoraa soo waa la qoraa registered dadka dhashay is common waxay caan ku tahay intaas magaalooyinka because jitrin are mainly born in hospitals caruurta inta badan waxaa lagu dhalaa isbitaalada hadda Soomaaliya oo kale markaa fiirso MCH-da ugu badan meelaha lagu dhalo inta kale xaafadaha lagu dhalaa isbitaalada uu yar yahay qalama yujid waa iska dinar waa naadir la xukmo leh marka birth certificates marka dhalashada oo birth certificates ka demand on the registration waxay ku xirata marka oo jitrin isbitaalka qofka iskuulka meesha uu ku dhalay qofkii in loo sameeyo dhalashada warqada dhimashada warqada guurka waxa la sameeyo la rabaa death ilmaha dhinta used waxaa loo isticmaalaa to calculate lagu xisaabiyo event mortality rate heerka dhimashada ee bulshada event rate mortality iyo qaabka loo xisaabinayo kullu inuu keeno laga yaabaa oo qayb kamid ah ku arkayna buuga inta kale demographiga statistics iyo maadada epidemiology-ga ayaa aad loogu isticmaalaa registration of all deaths marka in la diiwaan geliyo dhammaan dadka dhinta assist waxay naga caawinaysaa in determine in la ogaano the number tirada of people dadka that are departing the population kaasoo qaybka bulshada in relation marka loo fiiriyo the births dhalmada and this service kan waxay naga caawinaysaa economic planning inaan sameeyno qorshe dhaqaaleed the registration of newly married marka in la qoro dadka cusub ee hadda guursaday kaabal lamaanaha assist waxay naga caawinaysaa in start meeting inaan qiyaasno the number of parents in the country tirada waalidiinta ama dadka isqaba ama lamaanayaasha ee wadanka degan registration of refugee dadka kaabab ku jira is vital muhiim ay tahay in la ogaado rate-kooda iyo info in the country wadanka kusoo qulqulay ama ka qulqulay labadaba in la ogaado muhiim ay noo tahay marka registration ka waxa kusoo koobaya qaybtan qof kasta dhasha dhinta guursada waa in la qoraa muhiim ay noo tahay marka isticmaalano statistics-ka ama population-ka ama xogta bulshada marka la socono ama deegaanka marka la socono census code the term area census code refers waxaa laga jeedaa waa the enumeration waa tirin of the entire population of an area dadka bulshada meel degan dhamaantood in la tiro koobo and the communication of the demographical social and economic information of the population being enumerated marka waxaa loo tirinayaa marka dadka meesha degan yihiin socialka sida yihiin economical levelka macluumaadaas oo dhan oo bulshada ku saabsan ayaa waxay tahay marka in la qoraal marka waxaa leedahay marka waxay naga caawinaysaa being enumerated at given time xilli iyo waqti go'an in la xadido oo la sameeyo tirokoob kaas marka waxaa lagu ogaanayaa dadkii guri kasta degan nooca gurigu yahay sida loo degan yahay socialka bulshadan social economic levelska dhaqaalahoodii waxbarashadoodii inta shaqeysa waxaas dhan in la ogaado aad muhiim u ahaan tan in lala sameeyo wadankeena muhiim inuu ahaan lahayd it may be carried out waa la fuliyaa after 5 or 10 years 10 sano ama 5 sano kadib marka 10 sano 5 sano waxaa loo doorto waxay tahay aragtan asaa laba qeyba de jure de facto waxaa loo isticmaala akhyaaray dakhliga ama waxaa marka la sameeyo budget-a ku baxay salaam kale 10 sano marka la sameeyo waayo 10 sano meelahaas iska ay keedo kala 5 sano 10 sano way sameeyaan Ethiopia 10 sano marka la sameeyo kadib adris bedel dhacay Soomaa ama 5 sano kadib gudaha isbedel dhacay wax badan dhimanay wax badan dhalanay
haddana tirkoob kale in la sameeyo marka waddanka marka numberkiisa in lala socdo hadda Soomaaliya oo kale waxaa la sheegaa waa 15 milyan ilaa 20 milyan waagii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto waxaa iska 8 milyan la sheegaa kasayar oo meesha waxaa ku jirtay ahaa waagii xogaa waddanka qabqablaasha ama dagaaladii sokeeyay u badnaayeen niman kooxa oo arday ah waxay tagayaan afgooy xero ku taalo xerada agoomanka marka nin macallin ahaa noo sheekeynayo oo saajis noo dhigi jiray wuxuu dhahaa marka mid kamid ah odayaashii meesha joogaa ugu tagnoo dhahay marka odayaasha markaa meesha ugu tagnay wuxuuna adeer maxaa marka xogaa baartaama ama qamiis jimca camal xogaa ardayda agoonta wax bari jiray dhahay marka wuxuuna dhahay ardayda Soomaalida ama dadka bulshada Soomaaliyeed meeqay maraysaa 8 milyan aan dhahawna hasa wuxuuna dhahay adeer yaalow 8 waagii aan joogaa la sameeyay shati anaga aan dhal hadii lagu dari lahaa oo ilaa 8 milyan iyo 5 qof waxa ilaa 5 qof waa ilmahaagi laakiin meesha ilmihii kuma jiraan xisaabta marka waxa lagu iskoodan lagu baro been way macna taa marka anaga waxa laga maqan marka tirkoob sax lama hadda still estimation qiyaas la maraya wili qiyaas la maraya 5 milyan ilaa 20 milyan still wili qiyaas la maraya wax sax ah tirkoob laa ma jirto marka tirkoobka la sameeyo oo qayb kamida in la isticmaalay muhiim u ahayd the 5 years sanadaha 5 sana interval sensiga suxaalada quadrennial sense midka 10 sano xaalada decennial sense aad la socyaa marka 5 sano midka la sameeyo waxa leeda quinquennial sense midka 10 sano xaalada decennial sense isika decay waxa waa marka halkaas decay ama 10 sano in the de jure sense marka approach effort is made marka de jure sense marka la factor de jure midka sensiga ama tirkoobka de jure la yiraahdo wuxuu noo suurtagelinayaa inaan qorno each person at his place of residence hadda meesha uu degan yahay qof marka loo isticmaalayo waxaa leedaha de jure people dadka counter waxaa loo xisaabiyaa oo lagu tiriyaa memberska tirsanaanshaha of specific district degmo go-aan ama degmo xadidan specific district degmo xadidan ayaa qofka lagu sameynaya ama lagu tirinaya marka okay where halkaasoo they may be uu yahay on the material shiyada may be them the of the essence uu ka socdo tirikoobka the major weakness daciifnimada ugu badan of the de jure waxay tahay is that the purpose of that people are static marka dadka inay noqdaan qaarkood kuwa static oo meesha u taagan as opposed to the reality of the population dynamics marka loo gudbo xaqiiqada inuu bulshadu noqonayso kuwa isbedelaya population dynamics refer to maxalada what is population dynamics are to the rate where heerka factors qodobada influence kuwaas saameynaya population growth waxa keenaya ama isbedel ku imaanaya waxa la population dynamics okay in this respect marka loo fiiriyo de jure sense tirkoobka sensaha ama de jureha does not reflect ma sameeyo the reality xaqiiqada oo ah population trends and dynamics isbedelka population ka ku imaanayo isaga marka ma xaqiijin karo ka marka sensiga ma xaqiijin karo sense marka ma sense data xogta lidaado sense ama tirkoobka shows waxay muujinaysaa the composition ka koobnaanshaha of the population in terms waxaa la qorayaa sense xagga jinsiga qofkiisa age-ka da'diisa regional distribution gobolada dadka ku baasan yihiin hadda muqdisho kale aad ugu baasan yahay muqdisho marka degmooyinka waa lagu sii kala baasan yahay oo kale taas oo waa la qoraya marka also profiles waxay siinaysaa information macluumaad on the trends isbedelka and the level heerka mortality and fertility heerka mortality waa dhimashada and fertility heerka dhalmada sad information macluumadan helps the government dowladda waxay ka caawinaysaa to plan inay qorsheyso the provision of the basic facilities adeegyada asaasiga in dadka la siiyo salaano kale cunadii iskuuladii isbitaaladii kale waxaas oo dhan in dowladda u fudaan leedahay ama dadka marka meesha ka taliyo ayagan aad ugu fudaan lahayd weer halkaasoo a large percentage boqolay aad u badan oo population is composed ka kooban yihiin to of young dhalinyaro the government has to plan marka dowladda waa inay qorsheysaa la leeyahay how to avail the appointment opportunity si marka loo sameeyo oo dadka loo siin lahaa fursado shaqo dadka shaqeeya waxaa la ogaa dadka shaqeynaa badan marka waa in la sameeyaa da-doodii iyo jiilka marka waxaa leedaa yaaga generation ama human capitalka waa in lagu xisaabtaa marka oo shaqo la sii waa the total population figures marka tilmaanta bulshada guud assist waxay ka caawinaysaa the government in now in ogaato whether there is adequate economic and social resource haddii dhaqaalaha wadanka inuu ku filan yahay social resource kheyraadka bulshada haysto to maintain si loo macnaha inuu ku filan yahay ogaato marka sababta ay tahay to maintain si u joogtayso a high standard of living heerka nolosha marka si performance si sax looga dhigo marka density population bulshada cufnaanteed aad u badata areas meelaha aadar foosaa daraadda locator waxaa loo maleeyaa more facilitated aad loogu fudeeyo to cater for the big population bulshada aad u badata marka a sensitive koobka also
tirakoobka sidoo kale wuxuu ka caawinayaa dowladda inay sameyso making decisions go-aano on the division in la qeybiyo of the new administration areas maamulada cusub in meelaha loo qeybiyo tusaale in la abuuro new constitution macnaha constitutions cusub hay-ad cusub degmada loogu beesgareeyo tirakoobkii la sameeyey in lagu beesgareeyo marka oo laska sameynin oo marka dambena ay noqoto ilaa heer guurtida degmada ama magaalada ay yeelato heer guurto oo dadkii marka ay doortaan gudoomiyihii ay wax qaban lahaa aysan naqanin marka nidaamka inuu saas ku bedelaa rabaa. Although inkastoo census data is a vital for economic planning wuxuu muhiim u yahay marka qorsheynta dhaqaalaha some of its qaar iyaga kamida could be inaccurate mid sax ma noqon karo and therefore saa daraadeed unreliable iskuma haleyn karo such accuracy may be accurate u dhici karaa when the informants give false information marka macluumaad khaldan la siiyo tonominator dadka la tirinayo ama wax soo sameynay xog qaldan haday bixiyaan ama xog qaldan la soo aruuriyo marka qorshe la sameyn wuu qaldamaya. Some people dad qaar kamida are either counted twice laba jeer la tirin karaa or mise completely omitted waaba laga tegi karaaba for the denominations others kuwa kale deliberate give false answers jawaab qaldan ay bixin karaa marka su'aalo la weydiinayo kuwaas oo la xiriir number of jidrin salaano kale raashiya lagu siinayo isla marka meel qofaatina la qoyska 12 qof oo la saddex qof leewaba hadoo marka qorshahaas ku dheeraha marka economic planning oo macnaha waxa keena and the RH daadooda since tirakoobka marka cannot be conducted ma sameyn karo regular si joogta because they are very expensive aad u qaaliya marka 20 milyan tirakoobkooda soo sameeyay shaqaalihii qalabkii dakhliga ku bixlaa marka qaali waa saa daraadda marka waxa loo sameeyay waxa dhahdo 10 sano ama 5 sano loo dhigay marka su'aasha daawata saa this has forced waxay qasbaysaa some countries wadamada qaar kamid to merely enumeration inaysan bulshadooda aysan tirakoobka ku sameyn estimated figureska are not accurate nor reliable for planning hadduu qaldamo ma sameyn karo marka isku haleyn oo qorshe saxa ma keeni karo marka sample survey in the absence of adequate capital to undertake missions haddii la waayo marka adeeg ama xog ama dad sameeya shaqadan tirakoobka waa la bedela marka sensa lagu sameynaa tusaalahaan kale waa beriyo kale waxaa la isaga soo qaadanaa halkii loo taba 10 guri camal laga tirnaa kuwa kale sample lagu xisaabinaa some countries wadamada qaar kamid ah conducts national assembly ay sameeyaan ayuu ku base gareynay marka registration samples bulshada guud ayuu ku base gareynay bulshada guud ayuu ku base gareynayaan marka to secure si loo hubiyo desired information macluumaadda la rabo sample surveys ka are very representatives waa la muujiyaa because they seek waxay raadinayaan the percentage boqolida of for example tusaale women youth farmers doctors in a population waxaa raadinaysaa bulshada meeqa naaga meeqa dhalinyaro meeqa beerle meeqa dhaqaatiir waxaas oo dhan waa wax iska sample oo la raadin karo a sample survey informs wuxuu ku leeyahay small number trillion of some people and is therefore sad rated possible was suurtagal to use in isticmaal more detailed questionnaire oo aad u detail garaysan questionnaire waxaa la su'aalo xiran oo qofku inuu ka jawaabo bas an interview iyo waraysiyo dad offerkaas oo ogolaanay more accurate information xog badan in loo helo sample surveys oo kale ay usually inta badan keelid waa la sameeyaa to profile si loo sameeyo oo loo bixiyo information macluumaad on various topics mawduucyo kala duwan sida fertility dhalmada and people's attitude dabeecad dadka to family qoys planning si loo sameeyo breastfeeding xagga naas wajinta wax laga soo wareesto qolada caafimaadka ku fiican as demographic and health situation si loo ogaado xaaladaha caafimaad ee waddankeena ka jira si loo ogaado xaaladaha caafimaad ee waddanka ka jira okay population growth marka bulshada koriinkeeda there are two types of population growth koriinka bulshada waxaa loo qeybaa laba qeybood numerical population growth iyo natural population growth kuwan si dabiici inay u koraan kuwan si macnaha tir ahaan inay u koraan natural population growth marka la fiiriyo this is the natural increasing or decreasing of population bulshada inay si dabiici isaga korto ama si dabiici ah isaga badato ama si dabiici hoos u dhacdo waxaa la yidhaha natural population growth calculate this nooc xisaabiyo this type noocan of growth iyo koritaanka the following waxyaabaha soo socda waxay tahay in lagu xisaabtamo ko CBR crude birth rate-ka heerka dhalashada crude death rate heerka dhimashada number of birth tirada dhalatay oo death per every 1000 in the population boqolkiiba kunkiiba meeqa bulshada ka dhimata marka dhalatay okay CBR is updated by la verify iyadoo isku qaybinayo the total number tirada good of bodies ee dhalmada the total good of bodies recorded kaasoo laga qoray in a given year sanad go-an 2009 ee 20 macnaha by the total number tirada good of population ee bulshada in that year sanadka the fraction ama quotient maxsuulka is then kadib multiply waxaa lagu dhufanayaa wixii ka soo markaas u qaybiyo by 1000 kun ayaa lagu dhufanayaa
and the result is expressed waxaa lagu muujinaya number of birth rate tusaalahaan oo kale CBR waxaa lagu soo gaabay crude birth rate waxaa lagu helaa birth recorded in the year times 100 times 1000 divided by total population ka midkaa guud CBR ka waxaa lagu muujiyaa waa kana marka CDR kale CDR waa CDR crude death rate waa asir waxaa lagu muujiyaa number of deaths tirada dhimatay sanadka lagu dhuftay 1000 loo qaybiyay tirada bulshada both labada waa la leeyahay CBR and CDR oo crude birth rate ki oo heerka dhalashada iyo heerka dhimashadaba halkaas baresid waxaa lagu muujiyaa by 1000 persons halkii kunkii qofba the CBR and CDR crude birth rate ki crude death rate ka heerka dhalashada iyo heerka dhimashadaba waxaa loo yaqaanaa as to crude because all the difference dhammaan kala jiritaanka with the population like composition and age are ignored macnaha da'da iyo wixii iyo dhan waa la inkirin way isku jiraan marka daas waxaa loo isticmaalaya crude nin inaag ma loo kala qaada ilmo waay iyo wixii dhintay wixii saas loo isticmaalaya after calculator marka la xisaabiyo CBR ka iyo CDR ka marka la xisaabiyo information macluumaad obtained waa la helaa can be used waxaa la isticmaalaa calculation loo xisaabiyo natural population growth rate ka natural population growth rate waxaa lagu helaa inta dhalatay laga jaray inta dhimatay laga sii jaray inta tahriibka gashay laga sii jaray inta tahriibka gashay intaas marka la kala jaro wixii soo baxa waa marka wixii soo baxa waa okay like sida CDR ko kale the migration figures data jirtay tahriibka galay are also subtracted waa laga jaray from the CBR ka to determine si loo ogaado the population growth rate ka heerka saafiga ee bulshada kor ku dhacay population growth rate ka can also be expressed waxaa lagu muujin karaa as percentage sida boqolay by multiplying iyadoo lagu dhufanayo the result of the difference kala jiritaanka maxsuulka by 100 boqol for instance tusaale ahaan oo kale 1999kii crude birth rate wuxuu ahaa 52 kunkii qofba halka crude death rate wuxuu 14 in Somalia waa estimation waxaa wadahay this gives kan wuxuuna siinayaa natural population growth inuu yahay 30 state si kusoo baxay dirado waxaa leenahay CBR ka waa 52 kon CBR laga jaray CDR min qaad dhalatay 52 min qaad dhimatay 14 labadan kala jar kun qayb kun boqol kun marka labada marka la kala jaro waxaa soo haraysa 30 marka waxa qaybisa kun qayb kun marka qayb waxay ku soo haro boqol kun waa 3.8 ayaa to calculate marka da below in loo isticmaalo si loo muujiyo sida 8.8 ama 3.8% loo soo helo waa noocaas marka waa noocaas salaamo kale waxa ku sameynaysaa waxaa la soo dhahay konton iyo laba qof oo waa baafay dhasheen 14 qof way dhinteen wala dheef marka waxa lagu diray adiga marka waxa lagu diray in ogaata laga rabaa waxa lagu diray in ogaata laga rabaa waxa lagu diray marka natural population growth oo in soo gaabiso natural population growth waxa lagu dhahay crude birth rate ka laga jaray crude death rate ka loo qaybiyay kun lagu dhuftay boqol marka 52 oo crude birth rate ka laga jaray 14 loo qaybiyay inta kun waay kun u qaybi kadibna waxaa ku dhufataa boqolkiiba meeqa ah marka waxaa leedahay labadan kala jar marka waa 38 marka waxa qaybisaa kun u qaybi waxaa ku dhufataa marka boqol waxaa leenahay tusaalahaan marka waxaa sameyn karaa xitaa oo ii fudud inaan sameeyo eberkan hal eber inta la bix eberkan hal eber la bix maxaa soo haray 38 loo qaybiyay 10 marka u qayb waxay noqonaysaa 3.8 oo ku dhacsan percentage kan wada waa oo qiil xisaab dareen sida ama waxa kala sameyn kartaa labadan soo qaybinaysa marka hore labadan marka soo qaybis waxa leedahay 38 waxa u qaybisaa kun 38 marka kun u qaybi waa 0.038 waxa ku dhufataa marka kun ku dhufo aday 100% ku dhufo marka 100% ku dhufato waxa soo baxaysa 3.8% marka labadaas qaab ku xalin kartaa
labadaas qaab waa ku xalin kartaa, labadaas qaab waa ku xalin kartaa. Okay, natural population increase-ka marka midkaan fiirino, this kan waxa waaye actual and absolute but increase kordhinkaas dhabta ah in the number tirada of people dadka in area with a given period xilli go-an. In Somalia the intercentral numerication population wuu kordhay si loo xisaabiyo after every 10 years, 10 sano mar, maadaama dakhliga wadankan aada isaga yar yahay. dakhliga wadankan aada isaga yar yahay, waxaa leena markaa to calculate marka si loo xisaabiyo lagu dhahay 10 sano. The numerical population increase wuu kordhay is also waxaa loo isticmaalaa in lagu xisaabiyo kala jarinta udhexeysa two sense labada tirikoob. It can be also expressed percentage lagu muujin karaa. The statistics below xeebs ama isla egta ama tirikoobkan hoos ku muujiso wuxuu tilmaamaya tirikoobka la sameeyay intersectional numeration ku 1969 ilaa 1999 iyo 1989. waa kaa marka sanadka intaana dhacay sanadka intaana dhacay intersection marka waxaa labadan la kala jaraa bas intersectionska labadan la kala jaraa marka kan aan ka jarto labada sano waxaa ku soo baxay marka intan ayaga dhan u qeybi ayna marka u qeybsa 100 kuluf 4.8 malaasa ku soo baxaysa marka malaasa ku soo baxaysa kan waa ka saasna labadan kala jaraysa marka kala jarto waa soo qeybinaysa totalki marka total soo qeybisa marka intersectionka waa intan intersection ka waxa qeybinaysa totalka meeqa waa kadib 100 kuluf intaana soo baxaysa numerical population growth is important to me because of that it gives an elastic absolute increase waa tirada korota the country concerned that can base economic planning wadankan wuxuu ku soconayaa qorshe dhaqaaleed in loo sameeyo qiimaha saxda iyadoo la isticmaalayo si uu u kordhay bulshadii waxaa lagu xisaabinayaa sample population growth-ka insha allahu tacaala factorska ayuu noo joogi doonaa qaybta kale ee kilibka xiga waa kusoo dhamaystir doonaa chapterka. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.